Filimka wuxuu ku bilaabmaya Gianni oo ah ganacsade maalqabeen ah oo subaxnimadii rucleynaya. Inkasta oo khiyaar u egyahay haddana dhab ahaantii isagu waa shabeelnaagood. Farsamooyin kala duwan ayuu isticmaalaa si uu dumarku soo jiito khaasatan kuwa ka yaryar. Gordon maanta isagoo shirkadda jooga ayaa saaxiibkiisa Fabio uu qof walba u sheegayay sida Gianni uu usbuucan gudihiis dhowr dumar u soo xirigeliyey. Gianni oo isagana saaxiibkiisa dib u foorjeenaya ayaa u sheegay inuu ka haro ama haddii kalena uu xaaskiisa ka furan doono. kadib intii uu la qadaynayay dhakhtarkiisa Dario oo sidoo kale ahna saaxiibkiisa ayaa laga dalbaday inuu iska daayo ceyrsiga hablaha oo uu keliyana halna ku ekaado. isla markaas taleefon ayaa hadalkooda soo kala dhex galay oo Gianni waxaa laga soo wacay taleefonkii hooyadiisa. Dario oo arrintaa ku faraxsanaa ayaa moodaya in ninkan uu hooyadiis la heshiiyey. Si kastaba hatee qofka soo wacay wuxuu ahaa saaxiibkiisa kaasoo si cad ugu sheegay in hooyadiis ay geeriyootay. kadib markii uu qadayay Gianni ayaa u carray xabaalaha laakiin wuxuu ku dhex lumay koox Filibiines ah kuwaasoo aas kala waday isagoo ku qalday kii hooyadiisa. qoyskan ayuu raaligelin siiyey kahor intuusan tagin goobtii saxda ahayd. aaska walaalkiisa ay mataanaha yihiin ayaa khudbad kheyr leh halkan ka jeediyey laakiin Gianni ayaa iska diiday inuu wax khudbad ah soo jeediyo. kadib markii uu aaska soo idlaaday walaalkiisa ayaa ku wareejiyey furayaashii guriga hooyadooda. gudaha guriga wuxuu ku dhex arkay sawirradii qoyskooda oo isagoo kheyro ka muuqata ayuu fadhiistay kursigii curyaamada ee hooyadiis lahayd. waxyar kadib wuxuu daray raadiyeedii hore waxaana markaas soo gashay gabar lagu magacaabo Alessia taasoo isaga ka nixisay. Alessia oo ah daris ama jiraan cusub ayaa markay aragtay in ninkan uu kursiga curyaamada ku fadhiyo ay u sheegtay inay diyaar u tahay inay caawiso mar kasta oo caamaad u baahnaado. Gianni oo u elba shabeelnaagood ahaa ayaa isla markiiba bilaabay inuu naafo iska sii dhigo. maalintii xigtay ee shaqada waxaynu aragnaa Gianni oo si naxariis dar leh ugu qaylinaya shaqaalihiisa shirkadda High Speed. wuxuu iyagu xasuusinayay in shirkadiisu aysan kaba keliya soo saarin balse ay soo saaraan kaba isteel qurux badan leh. shaqaaladan cusub oo Julia la yiraahdo ayaa markaas hadalkiisa soo dhex gashay waxayna soo jeedisay inay soo saaraan kaba ay ugu talagaleen ciyaartooyda naafada ah si ay macaamiishooda u korodho. isagoo hadalkeeda ka jawaabaya Gianni ayaa ku qoslay oo wuxuu sheegay inaysan waxba gelin dad naafo ah kuwaasoo keliya hal kaba isticmaala. si uu shaqaalaha cabsi ugu beero ayuu markaas shaqada ka eriyey Julia. kadib markii uu shirku dhammaaday Luciana oo ahayd gacanyaradiisa ayaa u keentay boorso dhar duug ah oo wuxuu dib ugu laabtay gurigii hooyadiisa. isagoo naafis ka dhigaya ayaa uu Alessia ka dalbaday inay jikadiisa kafee ku wada cabaan. intii ay kafeegu cabayeen Gianni wuxuu ogaaday inay iyadu single tahay oo ayna keliya xiisayso ragga lacagta leh. intii ay sii bixisay kadib markii ay kafeegu dhammaysteen ayaa Gianni uu Alessia u wacay isagoo u sheegay inuu yahay mulkiilaha shirkadda High Speed taas oo 148 dukaamood ku leh Yurub oo uuna sidoo kale leeyahay fillo weynin badan. iyadoo yaaban Alessia isla markiiba isbedeshay oo waxay ninkan axadda soo socota ku casuuntay guriga waalidkeeda. axaddii wuxuu yimid adreeskii loo tilmaamay laakiin wuxuu gaarigiis dhigtay meel aad uga fog guriga. markuu arkay daruurihii oo soo taraya ayaa wuxuu xirtay jaakad roobaad oo gurigii ay u socdaalay isagoo curyaan iska dhigaya. gudaha wuxuu kula kulmay qoyskii Alessia ayadeeda oo oksijiin u xirnaa walaalkeeda iyo waalidkeeda. dabadeed Alessia walaasheeda Chiara ayaa baabuur ku timid. aad buu ula dhacay quruxdeeda laakiin wuxuu arkay in iyadoo ay curyaan tahay. ugu dambayntii waa u gartay sababta Alessia ay halkan ugu martiqaaday. iyadoo dan kama lahan ninkan oo walaasheeda ayay la rabtaa. qada kadib isaga iyo Chiara ayaa bannaan ku sheekaysanaya. waxay sheegtay inay jeceshahay ciyaaraha tenniska iyo fayoolinka. isagoo aan hadalkeeda xiiso ku helin balse isku dayaya inuu caadi iska dhigo ayaa uu madaxa lulayay. marka Gianni uu Rome ku soo laabtay wuxuu asxaabtiisa u sheegayay war ku saabsan Chiara. saaxiibkiisa Dr. Dario ayaa su'aalayay inanta shakhsiyadeeda halka asxaabtiis kalena ay weydiinayeen in ay iyadu qurux badan tahay in kale. wuxuu qoray inay qurux badan tahay balse uusan doonayn gabar naafo ah. dhan kale Alessia ayaa booqtay gurigii hooyadiisa iyadoo doonaysa inay u celiso jaakadiisa laakiin taa beddelkeeda waxay la kulantay walaalkiisa kaasoo aan ka warqabin beentii uu Gianni ku qaraabanayay. iyadoo Gianni u naxaysa ayaa waxay ninkan ka dalbatay inuu garab u noqdo walaalkiisa maadaama uu yahay qof naafo ah. Gianni walaalkiisa ayaa arrintan la yaabay laakiin wax jawaab ah ma uusan bixin. kadib markii waxaanoo been ah maqlay ayuu la kulmay walaalkiisa isagoona ka codsaday inuusan qoyskoodu ceebeen. si kastaba hatee Gianni ayaa mawduucii oo dhan leexiyey isagoo bilaabay inuu ku maadaysto bidaartii walaalkiisa. maanta xigtay kahor intuusan shaqada aadin ayuu fariin codeed u dhaafay Chiara isagoo ka codsaday inay caawada maqaayad ku kulmaan. laakiin waxaa la yaab ku noqotay in Chiara ay subaxaas xafiiska ugu timaado. isagoo in xafiiskiisa u yaalin kursi curyaan ah ayaa wuxuu si qaabdaro leh ugu fadhiistay miiskiisa. Chiara waxay sheegtay inaysan u imaan karin caawada oo waxay isaga ku casuuntay inuu soo daawado tartan tennis ah oo ay ka qayb galayso. galabtaas Gianni oo saaran kursigii curyaamiinta ayaa daawanayay Chiara oo tennis ciyaaraysa. run ahaantii aad buu ula dhacay ciyaarteeda. ciyaarta kadib waxay ku martiqaaday inuu la qadeeyo asxaabteeda naafada ah. si kastaba intii la qadaynayay ayaa waxaa nafta loogu qaaday su'aalo ku saabsan naafanimadiisa oo inta uu yaxyaxay ayuu xitaa habeenkii qarway. muuqaal qaybtiis xigta Gianni wuxuu u duulay magaalada Turin halkaasoo Chiara ay ka qayb galaysay bandhig faneed. wuxuu kursiga curyaamada oo koronto ku shaqeeya ka iibsaday oday waayeel ah oo qaybta sare ee masraxa ayuu boos ka qabsaday.
wuxuu markii ugu horreysay noloshiisa ula dhacay fayliinkan la tumaye. Bandhig kadib wuxuu la kulmay Jiara, taas oo weydiisay sababta uu Turin u joogo. Been ayuu sheegay isagoo iska dhigay inuu halkan marayay oo uuna howlo shaqo u yimid magaaladan. Dabadeed labadooduba waxay aadeen maqaayad heer sare ah si ay uga soo casheeyaan. Intii loo guda jiray cashada, Jian wuxuu isku dayay inuu qorto inuu ka been sheegay naafinimadiisa, laakiin dhibriqsigii ugu dambeysay ayuu hadalkiisa leexiyey, isagoo qortay inuu halkan u yimid inuu ayada la kulmo. Intii ay faraxsanaayeen oo inay qoslayeen ayaa uu jah wareeray isaga, taasoo keentay in kursigii korontada ku shaqaynayay uu marba meel u dhaqaaqo oo qof walba waa ula yaabay. Kadib kasoo laabashadooda Turin, Jiara oo walaasheeda la sheekaysanaysa ayaa muujisay in Jiani uu ku faraxsan yahay oona sidii boqorada u arko. Maanta xigtay Jiara ayaa booqatay filadii Jiani, waxayna si fudud ugu dhex socotay guriga, halka Jianina uu ku rafaadsanaa kaxaynta kursigiisa. Intii ay casheynayeen ayaa waxay isagu weydiisay sidii uu naafo ku noqday. Jiani oo sheeko been abuur ah isku aadinaya ayaa sheegay inuu galay shil la mid ah shilkii uu galay Christopher Reeve, kaasoo ahaa aktarka filimka Superman. Si kastaba ha Jiara ayaa caddaysay in Christopher Reeve uu gebi ahaanba naafo ka ahaa wixii ka hooseeya qoortiisa. Isagoo isku dayay inuu isbadbaadiyo, Jiani ayaa aakhirkii sheegay inuu faras ka dhacay, taasoo Jiara ka qoslisay. Markaas kadib iyada ayaa sheekadeeda soo bandhigtay. Waxay sheegtay inay gashay shil gaari, kaasoo ku sababay in lugaheedu ay naafo noqdaan. Kulankan kadib maalin badan ayaa kasoo wareegatay tan iyo markii Jiara iyo isagu ay xiriiraan, laakiin si tartiib ah waxaynu aragnaa inay isbedeshay aragtidii uu ninkan nolosha ka lahaa. Maanta xigtay intii uu subaxnimadii ordayay ayaa uu Jiara wacay, wuxuuna ka codsaday inay kulmaan, isagoo u sheegay inuu rabo inuu la wadaago arrin muhiim ah oo uu ka qariyay. Intaa kadib wuxuu tegay gurigeeda oo Jiara ayaa geysay qolkeeda, waxayna ka codsatay inuu sugo inta ay ka dhammaynayso baraktiiskeeda fayliinka. Tani markii ay kulmeen, wuxuu markii ugu horreysay arkay sawiradeedii yaraanta, markaas oo ay lugaheeda ku soconaysay. Isagoo karaysanaya beentan uu ku quraabanayo ayuu lugihiisa ku istaagay si uu u caddeeyo inuusan curyaan ahayn, laakiin oo iska fadhiistay kahor intaysan soo jeesan. Jiara waxay markaas saaxiibkeeda weydiisay waxa uu sheegi rabay, si kastaba Tim uusan ku dhiiran inuu arrintan sameeyo, sidaas darteed mowduucii ayuu u beddelay. Kadib intii ay wada qoslayeen ayay bilowday inay ka sheekayso saaxiibkeedii hore, kaasoo ka tagay kadib markii ay shil gashay. Jiara waxay qiratay in beenta iyo khiyaanadu ay aad u dhaawacaan. Markii uu tani maqlay, Jiani ayaa cabsaday oo wixii uu sheegi rabay oo dhan ayuu qarsaday. Jiara waxay ninkan ka dalbatay inuu baro asxaabtiisa. Markaas Jiani ayaa soo kaxeeyey Dari iyo Luciana si ay cashada ugu raacaan. Jidka dhexdiisa, Dari wuxuu qaxay in laga yaabo in inanta uu jecel u qaaday oo wuxuu ku booriyey inuu u sheegto oona arrintan soo afjaro. Kadib intii lagu jiro cashada, Dario ayaa saaxiibkiis ku dhiirigeliyay inuu arrinta caddeeyo, laakiin markuu arkay inuu arrintan kala labeenayo ayuu damcay inuu kashifo. Balse markaas Jiani ayaa maraq isku daadiyey oo saaxiibkiis ka codsaday inuu musqusha u wado. Gudaha musqusha, Dario wuxuu saaxiibkiis xasuusiyey in beentiisu ay fogaatay oo ayna tahay inuu soo gabagabeeyo. Laakiin intii hadalkooda wateen ayaa waxaa soo kala dhex galay mid ka mid ah shaqaalaha maqaayadda. Si degdeg ah, Jiani ayaa iska dhigay inuu musqusha isticmaalayo si uu u qariyo inuu socon karo. Habeenkii oo dhan wuxuu iska dhigayay mid curyaan ah oo xaqiiqda ayuu qariyey. Jiani walaalkiisa ubax wata ayaa Alicia u tagay, isagoona kashifay beentii uu walaalkiisa waday. Iyadoo khiyaanadan ka caraysan ayaa u dhaqaaqday dhankii Jiani oo dharbaaxo ayay ku dhufatay. Kadib waxay siisay muddo 2 maalmood ah si uu Jiara runta ugu sheego. Kadib geesigeena ayaa booqday aabihiisa, kaas oo ay hore hooyadiisa u kala tageen. Waxaana soo baxday in odaygii dhalayna uu isagu yahay shabeelnaagood. Intii ay sheekaysanayeen ayaa aabbuhu u caddeeyay inuu waalid xun noqday oona ka qoomeeyay inuu hooyadiisa kala tageen. Kadib wuxuu wiilkiisa ku booriyey inuusan samayn qaladkii u galay oo kale oo uuna mar walba daacad ahaado. Si kastaba taa intii ay ka sheekaysanayeen gabartii naafad ahayd ee uu beenta u sheegay ayaa waxay markaas maqleen wadaad la sheegay inuu faallow yahay, kaasoo ku sugnaa magaalada Lure ee Faransiiska. Tani waxay aabbaha iyo wiilkiisa siisay fikrad ah in Jiani uu Jiaro halkaas u wado si uu isaga dhigay inuu wadaadku ka daaweeyo naafinimadiisa beenta ah. Dhan kale, Alicia intii ay si tartiib ah walaasheeda ugu sheegaysay in laga yaabo in Jiani uusan ku haboonin ayaa waxaa markaas soo wacay Jiani, kaasoo ka dalbaday inay u raacdo magaalada Lure. Iyadoo yaaban, Alicia ayaa walaasheeda weydiisay sababta ay Lure u aadayaan. Jiara ayaa ku jawaabtay in laga yaabo in Jiani uu doonayo inay mucjiso dhacdo. Iyadoo Alicia ay rabto inay xaqiiqdii daaha ka qaado, ayaa markaas Jiara ay caddaysay inay ogtahay in Jiani uu socon karo. Maadaama ay iyadu in muddaha isticmaalaysay kuraasta curyaamada, waxay isla markii ay la kulantay garatay beentiisa. Kuma aysan qabsan beentiisa, sababtoo ah waxay rabtay qof jeclaado xitaa haddii uu noqdo mid khiyaanaya. Muuqaalka qaybtiisa xigta, kooxdii waxay aadeen magaalada Lure, waxayna la kulmeen wadaadkii oo Walter lagu magacaabayay, kaasoo ay sidoo kale soo baxday inuu yahay Talyaani. Wadaadku wuxuu Jiani ka codsaday inuu gudaha kula kulmo. Markii ay gudaha galeen, Walter ayaa ninkan u sheegay inuu og yahay inuusan curyaan ahayn, oo wuxuu uga digay inuu dadka hortooda ku istaago, sababtoo waxay tani keeni kartaa in dadku ay rajo been ah gasho oo ayna mucjisooyinkiisa rumaystaan. Waxyar kadib, Jiani ayaa gudaha ka soo baxay isagoo sii watay jiliinkiisa beenta ahaa. Dhan kale, Jiara waxay dhex socotay waddada bartankeeda, iyadoo aan ka warqabin in baabuur weyn badan uu kusoo wajahan yahay. Markii uu tani arkay, Jiani ayaa inta uu booday ayuu ka soo leexiyey khatartii.
inkastoo iyadu ay garirtay haddana ma aysan fashilin, iyadoo iska dhigtay in arrintan ay tahay mid la xiriirta mucjiso oo uuna socon karo. Kadib baskii ay raacday oo goobtan ay ka tagtay iyadoo ooynaysa. Markuu Roma dib u noqday Gianni adduunka ayaa ciriir ku noqday, oo isagoo shirkadda ku sugan ayaa Fabio oo caraysan oo ninkan ku xanaaqay isagoo ka caraysnaa inuu xaaskiisa la hadlo. Waxaa taasi uga sii darneed in Luciana ay shaqada iska cashay. Isagoo raadinaya degenaansho ayaa Gianni u tagay qabrigii hooyadiisa, wuxuuna markii ugu horreysay muujiyey jacaylkii uu qabay ayada. Kadib wuxuu shaqada dib ugu soo celiyey Julia, wuxuuna u xilsaaray bilaabida mashruuc kaba loogu sameynayo ciyaartooyda naafada ah. isagoo quus ka tahay inuu Chiara mar kale la kulmo ayaa Gianni u aaday gurigii waalidiinteeda, halkaas oo uu ayadeed kula kulmay. Wuxuu qortay jacaylka uu qabo inanteeda, oo wuxuu u ballan qaaday inuu noqon doono mid aad ugu wanaagsan ayada. iyadoo tani maqlaysa ayada ayaa daha ka qaday in Chiara ay raacday bas u socday masraxa Menotti ee magaalada Spoleto. waxay tilmaamtay dariiq uu baska qaaday oo waxay u sheegtay inuu awoodo inuu ka daba tagi karo, laakiin ka hor intuusan bixin ayay ugu digtay inuu mar kale Chiara qalbiga ka dhaawaco, oo haddii uu sidaas sameeyana ay naafo ka dhigi doonto isaga. nasiib wanaag Gianni ayaa haleelay inuu baskii ka daba tago. Inkastoo iyadoo beerjilaac iska ilaalinaysa ayaa Chiara ay cadaysay inaysan qofna u baahnayn. kadibna inta ay gabi ahaanba baridiisa iska indhatirtay ay darawalkii ka codsatay inuu baska dhaqaajiyo. muuqaal qaybtiisa xigta waxaynu aragnaa Gianni oo kusoo laabtay Roma oona si daran u ordaya. isagoo dareemaya qaladkii u geystay ayuu diiday inuu istaago ilaa uu ka daalay oo uuna sii socon kari waayey. si la yaab leh waxaa islaamay Chiara oo kursigeedii curyaamada saarneed. markii uu weydiiyey waxa ay Roma ka qabanayso ayay ugu jawaabtay si lamid ah jawaabtiisii hore, oo waxay u sheegtay inay keliya halkan maraysay. iyadoo doortay inay iska ilowdo wixii hore ayaa ay isku duubtay oo laabteeda ay ku qaaday. muuqaalka qaybtiisa ugu dambaysa waxaynu aragnaa Gianni walaalkiisa oo haatan Alessia shukaansanaya iyo qoyskii Chiara oo si wada jir ah ugu dabaaldegaya dhalashadiisii 50aad. wuxuuna filimka ku soo xirmayaa Gianni oo Chiara gacmaha ku sida oona la ciyaaraya. magaca filimku waa Run to You oo soo baxay sanadii 2022. subscribe saar kanaalka oo noo reeb like si aad u caawiso kanaalka. intaan muuqaalka lamid ah aynu kulmayno sidaas nabadgelyo.